dhibku wuxuu ku taagay waa hooyo ta ooyeysa waa hooyo ta qabriga taagan waa hooyo ta iskuulka taagan waa hooyo tan dugsiga taagan waa hooyo dhibkuna hooyu heesta 2007 ayuu soo bilaabmay dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Minnesota ay isu geystaan waxa ugu dambeeyay jimcihii bishii Maarso ugu horeysay habeennimadii oo xabad lagu dilay wiil dhalinyaro oo da'diisu ahay 17 jir afar kalena la dhaawacay lama garan karo sababta fogay isu laayaan dhalinyaradani waxa la oran jiray waa argudasho iyo waa lagu qaldamay haddase waxaa bilaabmay in xaafad la isu xabadeeyo kulan looga arinsanayay dilalka dhalinyaradan ayaan ku suganahay waxaa jooga taliyaha booliiska ee magaalada Minneapolis iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha degmada 6 ee Minneapolis Cabdi Warsame oo dilkii ugu dambeeyay oo ka dhacay xaafadan tiro hooyooyin oo aad u murugaysan wajigooduna iluntu ka qoyan tahay ayay la hadlayaan waxa kaliya ee u sheegaya waa in laga wada shaqeeyo si dilalkan loo joojiyo Cabdi Warsame oo arintan ka hadlayay ayaa yiri waxa ka codsanaynaa culimada diinka waxa ka codsanaynaa maxay hooyooyinka waxa ka codsanaynaa waalidiinta aabayaasha dhalinyarada aqoon-yahanada qof kasta oo community-gana ka tirsan inay gacmahaas qabsadaan oo xal loo helo dhibaatadan soo laabanayso anigu codkayga ku biiriyo ciyaalkan waa ciyaalkeennii cunug tuuga ma jiro mana rabna in la xirxiro ma rabna in la dilo ma rabna in xabsiyada ay galaan ma rabna inaan askar u isticmaalno kaliya waxaan rabnaa walaalayaal inaan ka hor tagno kuwii wax dilana iska qabanno kuwii kalena aan ka badbaadin in ismar dambe waxba dilin taas way mid ugu muhiimsan maalin kasta ma duugi karna ilmaheennii dhowr sano baa mar laga nastay in qabuuraha loo tago wiil xabad Soomaali kala dilay lagu aasayo hase yeeshee 2 sano ugu dambeeyay ayay dib u soo noqotay arintan hooyo Nasra Xasan ayaa qabta in shirarkan marka laga soo tago waalidiintu ay tahay inay isku duubni muujiyaan maanta booliisay way noo yimaadeen madaxdeennii baa noo timid wax waan idin qabanaynaa bay leeyihiin ha noo qabtaan laakiin community-ga annaga ayaa inaan wax qabsanno annagu waa inay naga soo go'antay annagu maxaan ilmahayaga u qaban karaa shir waa lagugu imaana waa lagula hadlaa laakiin halkaasaa lagaaga dhaqaaqaya laakiin muhiimaddanadu maxay tahay annagu community ahaan maxaan qabsan karaa hooyooyinkan ilmahoodii waaye ee hortayda fadhiya waa ay koriyeen waxbarashadoodii ayay ku dadaaleen laakiin intii aysan miraha guran ayay waayeen sida uu cod murugaysan iigu sheegay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo noloshiisa arrimaha dhalinyarada iyo badbaadintooda geliyay arintan soo noqonaysa dilka soo noqonaya maalin walba hooyo cunuga dhashay ay kala soo carartay dagaal ay la soo aaday wadan qabow dhibaato badan ay ka soo martay ay soo korsay markii uu anfici lahaa markii uu waxbarashada dhameystay markii iyadu hanan lahayd hiiliyo hoob ay ka heli lahayd la soo aasayo hooyooyinkan Soomaaliyeed way is abaabulayaan waxayna wadaan ololo ay ugu magac dareen hooyo darteed dilka u jooji kaas oo ay kula hadlayaan dhalinta wuxuuna ka soo bilaaban doonaa qabuuraha muslimiinta ee Minnesota sida ay ii sheegtay hooyo Nasra Xasan dawladana wax ku qaban karin booliisana wax ku qabin laakiin hooyo ilmaheeda si u badbaadin karta program hadda aan wadano oo inaan hooyooyinka isqaabino qabuurta tagno gacmaha isqabsano hooyo darteed u daaya hooyo darteed dilkan u daaya qorshahaasan soo wadana dadka goobtan igula sugan waxaa ka mid ah marxuumka 17 jirka ahaa tababarihiisii kubadda kolayga haweeneyda Jennifer Waber oo iyadoo walwal ka muuqdo igaga sheekaysay qofka uu ahaa ardaygeedii ma uu ahayn kooxaha burcadka ah wuxuu ahaa arday waxbarashada ku fiican oo buundo sare haysta wuxuu ku hanweynaa inuu kuliyad aado ama jaamacad wuxuu ahaa hogaamiye wanaagsan dad badan ayaana jeclaa waxaan rabaa in wanaaggaas lagu xasuusto waxaan la murugeysnahay oo u tacsiyeynayaa qoysaskii iyo dhalinyaradii aadka u jeclaa kuwaas oo aad u murugaysan